dadkii waxyaalo kale in ay ku mashquulsan yihiin oo energy-goodii xooggoodii ay ku bixinayaan. walaalayaal ku soo dhawaada barnaamijkii kobcinta aqoonta ee Hanolaad. tii maxay ahayd ugu muhiimsanayd oo ahaa Soomaalinimadana ay dayacan tahay ciwaanka sidaas ayaa laga fahmayaa. Marka waxaan sameeyay dhowr example ama maxay ahayd tusaale dadyowgii la kacay horteen kacay oo la abaabulay. Anaga marka maxaan ku raadinay xal burburkii waxaan geliyay wali ummad dadkii intay ka baxeen ma dhihin wixii lagu burburay khalad bay ahaayeen. Can we try another way? dariiq kale ma raadina ana wax lagu dhisi karo oo aan ahayn maxay ahayd tii hore. China Japan baa kusoo duulay, Europe baa dhinaca ka qaribtay, Japan baa muxuu caradooda dhul qabsaday, dadkii muxuu ahay iyagu leaders u ahaa ama markaa la dhihi jiray dadkii dynasty-ga ahaa ee xukumay dad corrupt iyo problem iyo mushkilo noqday bay ahaayeen. And then sidaas waxa revolutionaries maxay Chinese-ka ahaa oo Mao iyo raggiisa ay wateen waxa ugu suurta gashay inay dadkoodii needskii markaa ay maxay ahayd baahidii haysay inay ka faa'iideystaan oo dhahaan war ka kac meesha dhibaata idinku dhacday waa la idinku meystay mushkilada idinku dhacday waa inaad meesha ka kacdaan. sidaas darteed ay dadkii Chinese-ka ahaa maanta yani intay kaceen dhulkoodii dib u soo qabsadeen yani dariiq dheer bay mareen laakiin ugu dambeyntii waxay marayaan maanta China muxuu quwadda la leeyahay adduunka way ugu farabadnaan doontaa ugu xoog badan tahay. waxa ku xigay kacaankii Ruushka oo muxuu ahaa 1917 Ruushka boqortooyo oo Tsar la yiraahdo oo corrupt oo baaba'san baa maxay ahayd xukuntay dagaalo ku jabay lagu jabiyay sida especially ayaga markii Ruushka isdagaaleen Japan oo bad bay daris ka yihiin badii navy aad u xoog badan iyo Japanese-ka lahaa waa la soo jabiyay dhaqaalihii baa xumaaday dadkii waxay noqdeen dad yani aan ku faraxsanayn xaaladii ay ku jireen marka kadibna mudaharaad bay sameeyeen oo maxay ahayd 05kii bay mudaharaad waxay ku sameeyeen St. Petersburg magaalada la yiraahdo kadibna askartiisa xun bay u laysay waa la laayay waa la baabi'iyay markii la baabi'iyayna waxa ka faa'iideystay dadkii Stalin iyo raggiisii oo markii hore abaabul ku jiray dadka ayaga ah wadiyaabaysan hadii taariikhdooda meelahan London ma aragtay Houston iyo British Library bay firfiriisan jireen ayagoo dhowr qof ah wadankoodii iyo xoog leh boqortooyo haysato oo muxuu ahay baraay ka soo xarneen bay meesha firiisan jireen si ay yani uga wada hadlaan sidii wadankooda wax uga qaban lahayn Ruushka inta la akhiran waxa ay dadkii waxyaalihii needskii dadka marka ay u baahnaayeen message-kii dadka ay u baahnaayeen bay ay u sheegeen xoogagii muxuu ahaa maasiska ahaa oo ay ku yiraahdeen war noloshiina maciishada xagga breedka iyo nabadgelyo iyo dhulkiinii oo sharaftiinii la soo celiyay intaba anaga idin hayna sidaas bay dadkii muxuu ahaa yani ay loo taageeray oo markii dambe intay u soo istaageen ay u yiraahdeen يعني وهلن تاجريال هذا فربضان أو محوها كوسكودي راعة تاس أو كنتي إن محوها بقرطو يدي يحوجج إن تاس الصناش سوتشري إن ماشي محوها إن يعني لدبجديو أو بولش فيك ريفولوشن وحلي هذا وكرشوا أوكي محي هذه ديكتاتور نمدو دي أيجنا حالة دودي دمبيه human rights violation كي وحاس ay dib u galeen kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa on sidii ay u manage gareeyeen dadkoodii in la kiciyo marka hadda waxaan aragnay saddex wax oo ah dad dagaalo iyo dhibaatooyin soo galay oo laga soo xoog badiyay la burburiyay dad muxuu ahay siyaasiyiintoodii iyo dadkii markaa xukumay aan ku faraxsanayn iyo muxuu ahay dad maciishadii ay ku xun tahay saddexda xaaladood markay dadka isku darmato in ay dadku maxay ahayd ummaddu ay u sahlan tahay in la abaabulo anaga marka maxaan ku raadinay xal burburkii waxaan geliyay wali ummad dadkii intay ka baxeen ma dhihin wixii lagu burburay khalad bay ahaayeen. Can we try another way? dariiq kale ma raadina ana wax lagu dhisi karo oo aan ahayn maxay ahayd tii hore marka waa kana burburku wuxuu dhalay dagaal aan dhamaanaynin wuxuu dhalay juuc dad maxay ahayd qaxooti rafaadsan oo ummadda maxay ahayd maantay hadii la eego muxuu ahay badaha dadka ku dhimanaya
haddii la eego jasiiradahan maaragtay desert saxaraha maxay ahayd dadka ku baaba'aya waa dadkeeni way because waa meel aan qofku xataa meeshii nabadgelyo ka jirto qofkii ma uu arkayo mustaqbal shaqo rabaa qofkii haddii meeshii nabadgelyo ka jirto oo xataa uu u suurta gasho maanta inaan dariiqa bannaan ku baxbad lagu dhufanaynin qofkii hadduu dadaalo ama xamaal yahay ama iskuul dhigto ama wax kasta wuxuu u baahan yahay meel uu ku noolaado meeshii ma laha marka dadkii markay meeshii is nolol lahayn qofku wuxuu noqonayaa inuu yiraahdo xagee naf ka raadiya uu maxay adduunka dhinaciisa kale muxuu ahay u qardaja xero qaxootiyada waa dhibaato oo dibadeed ba cadowba dadkiina waxaan aad arkaysaan waa masawirkan waa ciidamo Ethiopian ah wiigi hadda la soo dhaafay bay waxay soo galeen magaalada Dhuusamareeb waxay qabsadeen magaalada maxay ahayd balad xaawil la yiraahdo wadankii oo dhan bay maxay ahayd ay sidaa u soo galahayaan maalinba meeshay doonaan bay galaan halkan waa ciidamo muxuu ahaay African Union la baxay oo xamar jooga maalin walba maxay suuqii dadkii dagaalka baabi'iyay oo dhibaatada haysatay noloshooda ka raadsanayeen bay madaafiic la dhacayaan wax reason ah oo maxay ahayd ay haystaan oo dadka ay ku dilayaan ama ay u leynayaan ma jirto markaasi maxay ahayd sideeba marka dadkii u kacinayna dadkii sideebay u kacayaan dadku problemka jiray in la ogaado oo dadkii la tuso leeyahay dhibka in haysto wakaasa dhibka in haysto waa dagaal dhibka in haysto waa gaajo dhibka in haysto waa burbur ummaduna waxaas dhan waxay uga bixi kartaa sidii ummadii hadda aan soo aragnay oo kale dadku yiraahdo mar dambe waxaan ma qaadan karna bas weey oo ka istaagaan qofka bani aadamka inuu yiraahdo war waxaan maanta iyo bariba wiilka Soomaaliga waxa lagu mashquulinayo waqtiga loogu dilay wax u tarayn halkaas u fadhiya xaaladda waxa uga baxayna inspiration iyo hobbies in dadka loo sheego something to look forward to qofka Soomaaliga marka in la yiraahdo markaasi wareede dhibkaas ay haysta haddaad marka aad halganto oo dadaasho ummadda tan muxuu xaaladda ay ku jirto in wax ka bedeshid you can do ayda sharaf baad u noolaanaysaa oo maxay ahayday oo haddaad dhimatidna sharaf ku dhimayso oo mirihii meesha maxay ahayday goodnesski laga gaaro hadduu cimrigaada sii jiro miraheedii wanaagsanaa baad guranaysaa Soomaaliyana marka haddii dadka Soomaalida maanta jooga qaabka ay u fikirayaan aysan wax ka bedelin maxay ahayd maxaa ka mancinaya in la yiraahdo Britole oo meeshan Soomaaliya la dhigi jiray Soomaaliya maxay ahayd ahaan jirtay dad bad deganaan jiray Soomaaliya something like that sababtoo ah maalin kasta kumanaan muxuu ahaay xabashiyaha ku soo qulqula oo Soomaalida cid ka waadiyeynaysan ayna jirin Britole inay inta ka farabataan oo qofkii meeshii uu ka qabsado yaa u diidaya wadankan la yiraahdo Malaysia Malayga dadka la yiraahdo iska lahaan jiray ayaga degana oo dad Malay la dhaho indhayartaas muslimiina dhulka ayaga degana Ingiriiska intuu isticmaalsanayay buu wuxuu geeyay Hindi iyo Chinese u shaqeeyay oo systemkiisii wixii clerkii iyo shaqooyinka xafiisyadii waxa uu qabta oo empire-kii u shaqeeya hadda Malaysia dawlad lama sameyn karo haddii la sameeyo saddexda community way ka tirsanaataa Malayga dhulka iska lahaa oo laga qaatay because nearly waxay ku dhaw yihiin muxuu ahaayeen isla number kaadaan oo kale Soomaaliya marka hadda haddii ajnabiga uu ku soo qulqulayo oo tiradoodu aad ay u badan tahay cid ka waardiyeynaysa aan jirin Boosaaso degaan oo Hargeysa degaan oo Xamar degaan qofkii Britole citizen buu noqonaya meeshii uu kula degan yahay and very easy way in hadhow ay maato ama conflict oo maxay diimeed ama ay maato qofkii inuu wadankiiba kaaga farbato ku yiraahdo sababta dadkeenu way qaxayaan wala soo gurmaya dadna way ku soo gurmayaan war hal dego be patient don't expect waxana aad ku daalaysa istiraahad mirahoodii bari baa la gaarayaa then wadaalaysan bari hadii la gaari waayo marka in dadkii la guubaabiyo loo yeero aan laga caajisin looguna yeero muxuu ahaay waxa koskon maxay mustaqbalkoodii iyo mustaqbalka carruurtoodiiba ay ku jirto dalkayga dadkaba waxa uu hay anta kii wadi xaqdooda madan dayacan dhibkiyo darada ka jira
dandarada ka jira